asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa weli kusoo dhowaada faa'iidayso channel. maanta waxaan rabnay inaan ka hadalno arrimaha ku saabsan taajirnimada iyo fakhriga, arrimaha ku saabsan maalka. haddii aad ku cusub tahay channelka, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saartid si aad ula socotid barnaamijyada mustaqbalka. si aad ula socotaan, waxa ay saameyn weyn ku yeelataa qofka noloshiisa, maalka ama inkamkiisa inta uu la egyahay, iyo farqiga u dhexeeya dadka taajiriinta ah iyo dadka lagu tilmaamo inay faqiiriinta yihiin. waxaa la sameeyey baaritaan ku saabsan sida ay labada qoloba u fakiraan psychology ahaan. kala sarreynta xagga inkamka iyo saameynta ay ku yeelato bini'aadanka ayaa waxaa laga sameeyey baaritaan ama research baa lagu sameeyey. waxaa la ogaaday markaa in horta marka hore ay ku xiran tahay qofka inuu isagu og yahay inuu fakhri yahay iyo inuu og yahay inuu maal leeyahay ayay ku xiran tahay. kadib markuu qofka ogaado booska uu markaas uu ka taagan yahay ama darajada uu adduunka ka joogo, ayaa haddana waxaa lasii ogaaday saameynta iyo waxa uu dareemo maskaxdiisa siday u shaqayso. waxaa jira nin la yidhaahdo Keith Payne oo psychologist ah, buug uu qoray oo buug cajiib ah. waxa uu ka hadlayaa waxa uu ku tilmaamay kala sarreynta xagga maalka iyo sida ay dadka bini'aadanka noloshooda u saameyso xagga caafimaadka iyo noloshooda guud ahaan. buugga wuxuu ku magacaabay The Broken Ladder, jaraanjaradii jabsanayd. marka wuxuu ka soo qaaday in jaraanjaro la wada saaran yahay, qofba meel uu ka haysto ayuu ku tilmaamay arrinta xagga maalka. tusaalooyin badan iyo sheekooyin ayuu ku soo qaatay. marka waxaan ka soo qaadanaynaa in yaroo kooban. marka qofka inuu maal yeesho ama uu taajir noqdo ama inuu fakhiir noqdo, uu noqdo dadka hooseeya, sababo keeni kara ayaa jira. xagga maalka haddaan u fiirino, waxay noqon kartaa inuu qofka dhaxal u ka helo. wuxuu noqon karaa qofka in qof hal abuur leh oo nasiibna ku darsado, oo intuu barnaamij sameeyo ama business sameeyo uu markaa uu successful ku noqdo oo ay ku guuleysto bay noqon kartaa. waxay noqon kartaa inuu ka dhaxlo waalidkiis ay u abuuraan xoolo iyo maal u abuureen, inuu markaa ka dhaxlay noqon kartaa. waxay noqon kartaa fursadihii markaa inuu ka helo meeshii markaa joogay, hadduu ka tago uu meel kala tago, uu meel laga shaqaysan karo intuu tago. fakhrigna sidoo kale dadaal la-aanna way noqon kartaa. waxay kaloo noqon kartaa iyadana sidoo kale inuusan qofkii fursad uu wax ku qabsado inaanu helinna way noqon kartaa. marka labaduba eed ma laha. midkanna lama dhihi karo waa qof aad iyo aad uga dadaal badan, lama dhihi karo. marmarka qaarkood dadaalka way kasii xeel sarraysaa. arrintan maalka waa wax iska qoran oo ilaahay uu u qoray. xagga diinta haddaan u fiirino, waa wax dadka loo qoray oo sidii ma aragtay qur-aanka uu sheegaya in dadka qaarna wax la siiyo, qaarna wax badan la siiyo. haddaan u fiirino marka meesha uu qofka joogo iyo xaaladda uu ku sugan yahay ayay ku xiran tahay fursadaha uu helayo. marka buugga wuxuu ninkan ka soo qaatay sheeko isagoo yar oo 10 jir meelahaas ah. wuxuu leeyahay iskuulkii waxaa la gaaray maalintii qadadii baa la gaaray. qadadana marka meel cafeteria ee ilmaha u raadsadaan qadada ayuu tegey. markaasaa waxaa joogtay maalintaas naag kale ku cusub cafeteriada. markaasay waxay weydiisay markuu raashinkii ay siisay, ayay wuxuu leeyahay waxay i weydiisay $1 iyo bar, lacag $1 iyo bar dhan ah bay tiri keen. ninkana uma uu baran suu sheegayo in lacag la weydiiyo. sababta marka waxay noqon kartaa in siduu leeyahay naagtan ay ku cusub tahay aan ogeyn xaaladda iyo maaragtay nidaamka meesha u shaqeeyo. wuxuu marka ahaa isagoo gruupka oo aan qadada lacagta ka bixin oo bilaashka lagu siiyo. systemka markaad dalka Mareykanka, caruurtaada haddii aad inkamkaagu yar yahay, qadada dowladda bilaash bay ku siinaysaa. haddii inkamkaagu badan yahayna marka waxay leedahay dowladda maaragtay waa inaad iibsataa. isagu ma ogeyn dad ardayda ka mid ah qaarkood inay lacag bixiyaanba ma uusan ogeyn. wuxuu moodaya in dadku ay wada sinaayeen. marka wuxuu leeyahay weydiinta ay weydiisay ayaa waxay igu dhalisay inaan ka fikiro, aan idhaahdo oo dad baa jira soomaha lacagta bixiya. anyway, marka wuxuu leeyahay maalintaa wixii ka dambeeyey waxaan ogaaday buu leeyahay inaan aniga ka tirsanaa dadka lagu tilmaamo inay inkamkooda yar yahay oo inaan fakhri ahay baan isku arkay. marka macnaheedu maaha inuu maalintan uu ogaaday maalintii kasii horreysay maalintan ka dambeysay inuu ka lacag yar yahay ma aha. laakiin ogaanshaha uu ogaaday inuu isagu ka tirsan yahay gruupka faqiiriinta ah ayaa waxay igu dhalisay buu leeyahay inaan ka fakiro nolosheyda, inaan ka fakiro oo dadkii si kale u fiiriyo. ardaydii gadanayay raashinka gadanayayna aan u arko dad iga kalaas sarreeya oo iga heer sarreeya aan u arko. soo marka ogaanshaha aad ogaatay in aad adigu xagga maaragtay dhaqaalaha aad hooseysid waxay keenaysaa feeling dareen gaar ah ayuu kugu abuuraya oo markaas maskaxdaadu feejignaato oo ay kacdo. saad la socotaan
haatan adduunku waa kala maaragtay inkan badan yahay meeshaad joogtidna way ku xiran tahay. haddaan tusaale ahaan usoo qaadano ka soo qaad inaad samaysid sanadkii adigoo meelahan wadamada horumar jooga 100,000 ama 150,000 inaad samaysid ka soo qaad. laakiin 150,000 kun marka loo barbar dhigo adduunka meesha aad joogtid waxaad noqonaysaa adiga 15% dadka ugu nolosha sareeyaad noqonaysaa. haddii adduunka intiisa kale loo barbar dhigana waxaad noqonaysaa dadka aadka u sareeyaad noqonaysaa. adoo intaa og haddii maalmaha ka mid intaad daartid raadiyaha ama aad TV-ga daartid oo aad fiirsatid oo maaragtay mar walba aad dhegeysid sheeko ku saabsan qof ka mid ah ciyaartooyda basketballka ama footballka dheela ayaa waxay saxiixeen contract oo sanadkii ay ku helayaan 36 milyan ka soo qaad Messi oo u dheela Barcelona ayaa hadda macnaha waxa lagu qiyaasaa inuu sanadkii sameeyo 71 milyan oo dollar. marka loo fiiriyo marka 71 milyan markii loo fiiriyo 150 kun oo dollar waxay noqonaysaa wax aad u yar. so marka wuxuu leeyahay marka ninka psychologist-ka wuxuu leeyahay kala sareynta inta la eg ayaa waxay keenaysaa marka inay dadkii ay si kale u fakiraan. sidaad u fakirtid marka adigu aad ogaatid inaad xooga income-kaaga sareeyo oo u hooseeyo si aad markaad ogaatid sidaad u fakiraysidna maaragtay waxay ku xiran tahay shakhsiga adiga aad tahay. si positive ahaan waa u isticmaali kartaa oo motivation ahaan inaad adiga dadaal samaysid oo aad dadaalkaaga uu sii bato. waxay kaloo keeni kartaa in adigana intaad daashid oo hadhowdii aad xoogaa disappointment oo niyadjab uu kugu dhacana way keeni kartaa. haddii aad markaa fiirisid qofka adiga aad isku barbardhigaysid ayay ku xiran tahay. ninka 150 ka sameeya haddii uu isku barbardhigo Messi wuxuu markaa noqonayaa fakhri. laakiin hadduu isku barbardhigo 90% adduunka inta ku nool oo sanadkii wax ka yar 10,000 oo dollar ka yar sanadkii sameeya wuxuu markaa qofka uu ogaanayaa inuu ilaahay uu nimceeyay uu wax haysto ogaanaya. soo markaa meesha uu fiiriyo hadduu qofku hoos fiiriyo uu dadka ka hooseeya fiiriyo waxaa laga yaabaa xoogaa in uu dareemo qanaacad inuu dareemo oo ku qanco iimaan xoogaa uu helo. haddii kuwii ka sareeyay uu fiiriyana waxaa dhici karta in xoogaa iimaankii ka tago qanaacadda inay ku yaraato oo markaas uu isku dayo inuu ma aragtay noloshii uu ku farxad inay gelin weyso noloshiisa ayaa suuragal. haddaan marka usoo laabano maskaxda bini'aadanka ninkan psychology wuxuu ay leeyahay waxaanu sameynay baaritaano badan ayaanu sameynay. waxaan soo ogaanay bay leeyihiin in dadka sareeyana aanay rabin in la soo gaaro kuwii hoosena ay mar walba uun kor fiirinayaan kor ma aragtay dadka ka sareeya ay fiirinayaan. taasna waa arrin iska dabiici ah inay dadku tartan inuu ka dhaxeeyo waa iska arrin dabiici ah. laakiin caafimaad ahaan saamaynta ay ku yeelato sida dunida saddexaad hadda wuxuu ku tilmaamay fakhrigu waxyaabaha ugu weyn oo dilka keena inuu yahay. haddii maaragtay aan dadku sineen xagga dhaqaalaha ay ku sineen in markaa la isdilo ayay keeni kartaa oo dadku isdhacaan ama isdilaan. haddii wadamadan kale loo soo baxana waxay keeni kartaa mental health nolosha inay ku wareeraan ayay keeni kartaa. waxyaabaha la yaab kale oo ay sameeyeen baa waxaa ka mid ahaa in ay yidhaahdeen dad baa waxaa la siiyey lacag loona sheegay in qaarna lacag yar la siiyey qaarna lacag badan la siiyey. waxaa la yidhi marka haddii aad lacag adigu isticmaashid inta aad isticmaashid inteeda la eg ayuu isticmaalayaa qofkan kalena. marka waxaan ogaanay buu leeyahay inay xataa isku dayeen inay lacagtooda iyagu ay lahaayeen inay khasaariyaan inay ma aragtay aad u isticmaalaan sidii markaa ay kuwa ka hooseeya ay lacag la-aan u noqdaan. marka calaamadahaasoo kale markaad fiirisid waa iska psychology ahaan in iyagu ay ku jirto maadaama anu wax ii haraayo qofkan kalena inta uu haysto hadday ka dhammaato anu wax unbaa ii haraayo base mar walba aan oga sii sarreeyo ayay noqon kartaa. waa sidaad la socotaan dadka lacagta le aad ayay u kharash gareeyaan u isticmaalaan kharash macnaha ma baabuur cusub bay gataan ama guryo waaweyn oo xataa aanay u baahneen ayay gataan oo tirada ka badan ma aragtay si fancy oo nolol aad iyo aad u sareysay ku noolaadaan inay show of maaragtay dadka tusaanna way isku dayaan. maxaa keenaya marka inay dadka tusaan? marka waxaa lagu leeyahay maskax ahaan waxay rabaan inay dadkii kale inay iyaguna intay isku dayaan xoogaaga ay haystaan inay kharash gareeyaan. baabuurkii oo fiican ayuu baabuur kale cusub qofkii gadanaya adiga kaagii waa kuu fiican yahay ama ma aragtay gurigaagii waxba ma qabo guri kasi fiican baad damcaysaa inaad gadatid. maxaa yeelay ninkii kaa sarreeya ayaa maalin walba intaasoo tallaabo kaa sarreeyo intaasoo qarash galaya. so waa waxay ku talagalayaan inay iyaga kooda baabi'iyaan si adigana aad isugu daydo xoogaaga yarka ahays inay kaa dhammaadaan. taas marka xoogaa maaragtay maskax ahaan waa wax maaragtay bini'aadanka ku jira inay iska reebaan ayaa ma aragtay ayuu soo ogaaday. waxaa kaloo la soo ogaaday oo baaritaankan laga ogaaday in ma aragtay ay keento xanaaq wax la yidhaahdo iyo rage-ka waxa la yidhaahdo ay dadka ku abuurto iyadoo aan la dareemaynin laakiin ay ku abuurto. markii ma aragtay aad ogaatid inay jiraan dad adiga kaa lacag badan oo kaa sareeya aad ogaatid waxaa dhici karta marka in aad dareentid in lagu attack gareenayo macnaha aadan dareemin farxad aadan dareemin oo aadan ku qancin systemkii markaa
aad u malaysid systemkii in adiga uu ku khayaanayo oo dadkaana systemkii uu u fududeynayo inaad u malaysid baa dhici karta. tusaalihii labaad ay soo qaateen waxaa ka mid ahaa in diyaaradaha marka la raaco waxay kala leeyihiin kalaasyo kala leeyihiin first class iyo coach waxa la dhaho oo aad u kala lacag badan. xoogaa marka waxay ku kala duwan yihiin first classka dadka waa inay xoogaa leg room lugaha meel ay ku fidsadaan ama ay seexdaan ay helayaan safarku markuu dheer yahay. sidoo kale lacagta aad iyo aad bay uga badan tahay. qofkan markuu ka bixiyo $1,500 uu ka bixiyo kursi yar oo ciriiriya oo labada dhinac laga joogo dhinacna aadi karin uu ka bixiyo, kan ma aragtay lacagta le wuxuu awoodaa inuu ka bixiyo $6,000-7,000 inuu ka bixiyo kursi oo uu markaas isugu marka cuntada loo soo hormariyo, boardingka iyaga lagu hormariyo, serviceka iyaga aad loogu badiyo. saasa marka ma aragtay waxay keentaa baa layidhi in kala sarreyntii hadday arkaan dadkii marka inay dareento. waxyaabaha ka mid ah uu soo ogaaday waxaa ka mid ah diyaaradaha first classka dadka ay horgalaan oo boardingka loogu hormariyo in ay keento waxa la yidhaahdo air rage waxa la yidhaahdo oo ay dadkii oo couchka joogay in qaarkood intay xanaaqaan dambiye ay galaan ama ay xanaaqaan rabsho inay sameeyaan. rabshooyinka diyaaradaha ka dhexdhaca waxyaabaha ugu weyn oo sababa waxa weeyaan uu leeyahay dadka oo first classka jooga ay soo dhex marayaan ayaa ma aragtay keenaya inay markay ay soo dhex maraan ay arkaan dadka siday u fadhiyaan inay iyaguna ma aragtay xoga xanaaqaasaa keenaysa in dulqaad la-aan in ay meeshii ka imaado. haddaan marka usoo laabanno yaa fakhri ah yaase taajir, again waxay ku xiran tahay saan sheegnay meesha aad joogtid, inkamka adiga aad samaysid iyo cidda aad isla barbardhig. haddii aad marka tahay dadka dadaalka badan oo maseerka badan oo hadday maseeraan wax inay qabsadaan jecel haddaad tahay waa fiican tahay inaad kaa sarreeya fiirisid si aad u dadaashid. haddii aad tahay qof arrintan intuu isku wareeriyo hadhow dhibaato iyo caafimaad xumo xanuun uu ka qaadayo oo maaragtay ku wareerayo isku xanaajinayo arrintan hadday jirtana waxaa fiican in aad fiirisid kan kaa hooseeya, because labadaba faa'iiday leeyihin. kan kaa hooseeya haddaad fiirisid waxaad dareemaysaa xoogaa qanaacad, kan kaa sarreeya haddaad fiirisid waxaad dareemaysaa in howl badan ay ku taallo oo adiga inaad shaqo badan inaad qabatid si qofka u gaartid. faa'iidana waa leedahay, khasaarana waa leedahay. inta badan oo sida positiveka ka imaanaya waa in qofku uu markaa eega dadka ka hooseeya. waxaa fiican qofka mar walba inuu eego waxa uu haysto oo uu ilaahay siiyey inuu markaa ku qanco, inuu dadaalo oo isku dayo inuu hore u maro way fiican tahay, laakiin inuu marka hore isku dayo inuu mar walba fiiriyo kuwa ka liita si uu bal at least noloshiisa ay habi u ahaado. mahmaha baa jirta Soomaaliya oo dhahaysa fakhrigu waa qof arkay iyo qof uu arko. marka waxay ku kala duwan yihiin ma aqaan, laakiin waxaan u fahmay in laga wado xagga bakhiilnimada dad iyagu fakhriga arkay oo fakhrigii ka baqaaya inay lacagti ka dhamaato aan rabin inay bixiyaan, iyo kuwa ma aragtay iyagu wax bixin kara oo fakhri laakiin iska haddii wax heli lahaayeen way bixin lahaayeen. laakiin mahmaadaas marka waxaan usoo adeegsanayaa anigoo aan xaggan ugu soo adeegsaday psychology ahaan, fakhrigu haddii aad ogaatid oo adigu aad aragtid in aad fakhri tahay yaanay saameyn kugu yeelanin, because marka horeba adiga isjaaj gareynaya. waa inaad adiga isxukuntaa oo aad tiraahdaa xaggeen adduunka ka jooga, jaraanjaradii xaggeen ka saarna. saad la socotaan jaraanjarada dadku aad bay u kala tageen. waxaa la soo ogaaday in ma aragtay dadkii lacagta lahaana inay lacagtooda sii badanayso, kuwii aan lacagta lahaynna ama dhexdhexaadka ahaana aanay weli kor aadin oo meeshoodii ay joogaan. taasaa waxay keenaysa marka gaabka u dhexeeya inuu sii batay. marka waxaa la moodayaa in dadkii ay sii faqiir noqonayaan oo lacagta kasii yaraanayso, dadkii lacagta lahaana ay sii taajirayaan. taas marka waxa weeyaan waxay keenaysaa maaragtay inequality waxa la yidhaahdo kala sarreyn. waxa la yidhahdo kala sarreyntaas marka ayaa macnaha ayuu barnaamijka ku saabsanaa oo wax jira ah oo adduunka dhan ka jira. marka saameynta ay qofka shakhsiga ku yeelato waxay ku xiran tahay meesha uu fiiriyo. way fiican tahay inaad maaragtay kan kaa sarreeya fiirisid, waa dabeecad bini'aadamku ku jiro tartan inaad maaragtay geshid. laakiin caafimaad ahaan waxaa wanaagsan in hoos la fiiriyo oo aad adiga jaraanjarada kuwa kaasii hooseeya aad eegtid